howlgalla ciidanka maamulka Puntland ay ka sameeyeen tog baalade oo fariisimo u ahayd dagaalamayaasha Daacish ayaa waxaa la soo warinayaa in ciidanku halkaasi ku soo qabteen agab loo isticmaalay macdan baarista oo maleeshiyaadka Daacish ay halkaasi kaga carareen. saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan ka dhanka Daacish ee calmiskaad ee gobolka Bari ayaa waxay xaqiijiyeen in ciidamada maamulka Puntland ay heleen agabkaani kadib markii halkaasi ay iskaga firxadeen haraadigii maleeshiyaadka Daacish. wararku waxay intaasi ku darayaan in halkaasi Daacish ay u ahaan jirtay kayd hase yeeshee ugu dambeyntii gacanta looga dhigay oo ciidamada maamulka Puntland ay guud ahaanba halkaasi kala wareegeen. agabka ay gacanta ku dhigeen ciidanka Puntland ee waxa ku jira hubka noocyadiisa kala duwan sida ay warbaahintu u sheegeen saraakiisha hogaaminaysa howlgalkaasi ka dhanka ururka Daacish. waxna hore soo baxay waxay muujinayeen in maleeshiyaadka Daacish ay dhaqaale fara badan ka sameeyeen howlaha macdan baarista oo muddo sanado ah ay ka wadeen buuraleyda calmiskaad ee gobolka Bari. ciidamada Puntland ayaa waxa ay wali wadaan howlgalkan la doonayaan lagu soo afjiro kooxda hubeysan ee Daacish oo wali ku sugan qaybo kamid ah buuraleyda calmiskaad ee gobolka Bari. Puntland ay marar fara badan ay guulo xoogan ka sheegatay dagaalka ka dhanka Daacish iyadoona sheegtay in qaybihii ugu dambeeyay imanka ay doonaysan ay ka saarto maleeshiyaadka Daacish.